بسم الله الرحمن الرحيم ونيجو سلامي Somali Wayne Technology أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشر كان عشر نوجه ري يجربي هراء وصوص سميني ستاندرد هراء وصوص سميني بنا عن روتر تريق وقلايو إن extended هراء وصوص سميني بنا عن قلنينو source standard هراء وصوص سميني so destination ك إن حاجة سلي قلنا روتر كسل قلنايو إن عاو حلقة بلوغرين عاو هراء وصوص سميني إن يجربي هراء وصوص سميني channel كيك ولا جرام قرن إن أنت سوسو في إنك تختار هذا الفيديو كان حاسكو دينا more troubleshooting إنها سمينه أو access list extender إيه standard كذا إن فيديو حاسكو دينا هذا telnet أم بلوغرين وأن كسرنا ماشي هذا إن أساسا تانا روتر كلا إيه عادي وشقيان أوكي إن سير normal كهات حنصور بلاونا status وش دينا إن waxaan kaloo isku dayaynaa inaan raacsiiyo isku daya inaan raacsiiyo maxaa la dhahayay timer yani sida loo shaqeeyo timeka la shaqeeyo oo kale inaan raacsiiyo isku dayi doona insha Allah qofka markii uu shaqeeyo Monday to Friday oo kale remote waxa lagu ogolaanaa waqti haddii yani shaqada ay dhamaato remote in lagu soo galo routerada ma la ogolaanayo access system waxa soo lagu sameeyaa waqtiga shaqada remote kala ogolyahay shaqada waa dhamaatay remote waa xirmaya albaabkiisa access system lagu sameeyo kara waxa saytay oo dhan taas isku dayna ana oga qadrika sharaxad ka soo bixiyo insha Allah sida normal ka ahayd console kan router 4 iyo router 3 iyo router 1 ka fiirin doona iyo router 3 iyo router 1 talasku kan show run selection begin access waxba kuma jiraan kan now router 3 grana no show run begin access mujira kuma jiro router 4 kana show run begin show run begin access waxba kuma jiraan okay haddaan dhaho pin 14.14.14.1 هذه وشغلنا trace root haddaan dhaho 14.14.14.1 router 4 aan joogaa lama rabo router 3 aan rabnaa pin 14.14.14.1 trace root 14.14.14.1 waa sidaas sharciga okay router marka router 3 ga horta line VTV ga soo sameeyno telnet 14.14.14.1 open router 4 password malahan laakiin login kiisa sameeyay okay password malahan login kiisa sameeysan config 9 VTY 04 password Cisco login and dan probena marka وكويدينا password okay أنا router 1 كنا router 1 telnet 14.14.14.1 وكويدينا password show router 4 now show the interface brief dan 12.1 no dhiman okay inta la gaaray marka waxa soo deena access list okay configure terminal ma ku jirin by the way so access list daragarin IP access list hada dhahdid waxaan rabnaa magaca inaad samaysid oo kale misaal saas leedahay
ib waa inaad ku dartaa marka magac sameynaysid marka extend magaca rabta raacsin kartaa word aa dhahay Soomaaliya raacsin kartaa standard hadii Soomaali waa raacsin kartaa iyadana hadda standard word aa dhahay magaca rabta raacsin kartaa adeeg ugu xiran tahay okay hadda taas marabno access list maxay ku kala gedisin horta saan markii la dhaho waxaan haysnaa deny iyo permit deny soo qaadanay waxaan haysnaa 3 xaraf kaliya hadda fiiriso halkan okay haddaan dhahno extendedna waxaan haysnaa 5 shay hadda koor waa sharxaysaa umaleynay deny haddaan dhahno meeqa haystaa marka kuushis waa sii badatay saf dirir badan ay yaalo intaan oo shay haysana protocol tii horena haddaan soo qaato tantii koreysay waa ka yar tahay waa tan deny markaan soo dhahay waxaa haysanaa kaliya host name iyo ani iyo host bes haysanaa kaas waa ip address agelinaysa waa intaas kaliya taalo okay marka tan kale standardka waa access listiga waxaa u maleysaa inuu aad ugu badan yahay iskuma dhawa markii aan access list asaan u joogno aan rabno telnet inaan block gareyno halkan ka haysana waay ma hayno halkan tcp haddaad dooratid waa taqaana tcp waa taqaana kule Soomaaliya transmission control protocol waay soo gaabiyay calaam su'aal kasi ip address una siiyay okay waxaan leenahay 11.11.11.1 saana dhahday subnet 0.0.0.0 saana dhahday wuxuuna siiyey host kala dooro saxba 12.12.12 dabcan boortii oo aqoonbala gareeray saan hadda waay haddana wuxuuna siiyey inta uu siiyey waxaa dhahday eq dooro space leh calaam su'aal gali haddana wuxuu ku siinaa telnet laakiin intaasaan la gaarin 0.0.0.0 saande markaan aan joogno waxaan rabnaa waxaan 00 ugu soo daray qoraalka hadduu bato aan rabaa inaad wax niga tusiyo halkan waxaa taalo $sign aragtaan $sign taalo halkaasaydi $sign kan intuu ka yimid $sign kaas muxuu u yimaaday kor haddaa fiirsata waa kas $sign ku yaalaa halkan waa u yaalaa maxaa keenay taas $sign kan hadduu qoraalkaaga bato oo soo baxayaa haddii laakiin qoraalkaaga uu yar yahay ma soo baxayo okay taas waa inaad taas ku ogaataan saanta marka calaam su'aalka soo siiya marka aad siisid intaan u siiyay marka waxaan rabnaa anaga telnet aan raadinaynaa Soomaali telnet maadaama raadinayna waa inaan soo qaataa eq gaas ito inaan soo heshaa eq hadda saane marka boorto dhan haddii bilaabmayaan marka bgp board Jordan board cmd board waa badan yihiin edit wuxuu dhan intay ku wada jiraan hadda saan dhadid waa kan telnet time oo ku koreeyaa iyo talk oo dhexeeya telnet board 23 halkan board 23 hadda waaye haddaan rabno boorta inaan isticmaalin boorta ma rabo inaan isticmaalo telnet inaan ku qortaan rabaa waa isticmaali kartaa qof u diiday malahan hadda saan dhadid tel tab isticmaal telnet waa kan caadi u soo baxay caadi u shaqeynaa waa extended taas haddaan rabno standard telnet ugu helaynaa waay marka wax yar loo nasiiyay data access list 10 okay waxaan anay permit ana deny dad waxaan soo fiirno Soomaali tan ka koreeyo waa deny waa deny saanta ima siinayo laba loo siibo ip address kala sheegay geli 11.11.11.1 host meelay ma dhaafi kartid ma dhaqaaqay log ku siina wax kala mu dhaqaaqi kartid marka darteeda waxaan isku dayaynaa inaan telnet standard ka keeno sababtoo kan ugu dhib badan kan waa okay
access list 10 markay tahay kan marka waxaa permanent inaan kormarin waa ku qasbanaya deny haddaan soo kormarino hadhowdii ma shaqayn doono sidaas darteed permanent aan kormarnayna waxaan isku dayaynaa telnet inaan ka xirno wuxuu dhan routerada oo dhan misaal waxaan rabnaa router 4ka in loo furo telnet maadaama uu leeyahay kuwan dhan ay geli karaan waxaan rabnaa labadan router inaysan telnet dad ku geli karin halkan routerna oo ku geli kara telnet taasaan isku dayaynaa yacni kana loo furaa antu waa inuu dhex maraa halkan waa inuu galaa kuwaana waa inay yacni aysan telnet ku geli karin taasaan isku dayaynaa markaan permit 10 access list 10 permit ananay kaas wuxuu ahay adresskiisa 11 muxuu ahaa router 3ga show ip interface brief haddaa dhahdid 11.11.2 kaas waxaan ka dhigaynaa marka 11.11.2 aan waxaa ugu dhiganaa permit kan hadda telnet waa shaqeynayay waa kaas caadi u shaqeynaa router 4ka permit 11.11.2 marka saan haddaa dhahdid log oo isiinaa log gray waay taas okay hadda waxaan leenahay haddana access list 10 deny waxaan leenahay waxaan ogolaanay access list inta halkan laga soo galo access list waxaa ogolaanay ee qaybtan laga soo galo routerkan keliya access list laga soo galo laakiin qaybtan waa xireynaa haddaan qaybtan xirno waxaan kale ku dari rabnaa inaan ku darno aan rabnaa qaybtan dhan inaan ku darno aan rabnaa waxaanoo dhan inaan ku darno intaan dhan telnet waa inaysan isticmaali karin aan rabnaa intana telnet dhanba laga soo isticmaali karin telnetka keliya halkan boort u furnaado oo halkan aadi karo oo routerkan telnet lagu soo geli karo intaasaa ka hadnaa deer marka routerkii deny aan soo dhahnay wuxuu ahay 13.13.13.1 waa qaybtan ya marka waxaan leenahay log saas waxaan soo sameynay permit oo hal IP address ah deny oo hal IP address ah anigii weli ma sameynin anigii weli ma sameynin wixii aan soo arki jirnay oo dhan weli ma sameynin okay waxaan sameyn jirnay markii hore fiidiyoada hore hadda soo fiirsatay waxaa la dhex gelinayay markii access soo sameeyo interface-ka la dhex gelinaya hadda interface ma dhex gelin doono line vty 04 aan dhex gelin doonaa access list 10 anam su'aalsi in iyo out kuntoon naga sii marka inaan leenahay ma laga soo geli karo waa deer router 4 ma la soo geli karo waxaa la soo geli karo hal albaab line vty dhexdiisa waxaa loo soo furay kan kaliya marka aniga waxay nooga hartay ilan live intee laga soo galaa hadii remote ahaan loo soo galaa hadii la dhaho waxaa laga soo geli lahay line vty ana laga soo geli lahay haddii remote ahaan loo furo meesha qofka remote ahaan telnet ahaan uu soo galo ama ss soo galo wuxuu soo geli lahay line vty somaan line vty waxaa leeba loo ogolaadayba in la soo ogolaaday aan lahay markii oo access system number 10 ka uu soo fiiriyo qofka native wuxuu aadaa kaliya permit waxaa u ah kan deny waxaa u ah kan laakiin wax kale oo dhan waa wada deny sababtoo ah permit ma la soo dhigin markii permit laga soo dhigo jidkaan soo galaya markaas intii qofkaan oo kale naqanaan awooda yaalnaan soo gali karaan waay hadda marka waxaa waaye anaga waxaan rabnaa wax kasta oo soo geli lahay inaan taas ku xirno anadii saasay ku dhamaatay okay xanaanahay and wr okay ana router 1 abadaati soo galay waa ka password time out expire allah hadaati open somalin kordhi u laabo 14 ka soo gali connection refused to remote host alla wala diiday okay router 3 gana kan hadaatay waa toon soo galay waa kan asna hadaa fiirisid waa toon dhahay open password time out oo soo qoray hadaatay sababtoo ah password ma gelin anaga hal mar ku laabo mar labaad ku dar
وكان 14 عادي وباسورد ويدينا سيسكو وقال لي روتر 4 كو جوجا هدر وكان روتر 4 هذا سالكو تاغن yahay okay hadaba yani router 4 kana kan halana show login hadan loo macnahay show login hadan loo apply no router okay show access list show access waxaa leeyahay permit waa la soo galay laakiin dinaag weli ma soo sheegin mar labaad ku day dinaagan waa la soo diiday mar labaad halkan imaado ma soo saarin ma soo saarin samayn marka waxaan isku daynayaa kaa soo saarno config access list number 10 marka qaar troubleshooting faa'iido ku jirto access list 10 access 10 deny any deny amor space ku jiro deny log al rabaa sax sande markaan okay hadda marka barobay hadana sande 14 waa soo diiday mar labaad barobay waa la diiday kan access weli ma dhihin kan weli access ma dhihin sax waa kan show access list hadda muxuu keenay deniga waa kan waa keenay soo martin 3 denies oo keenay and 2 denies oo keenay marka soo deny la sameeyo soo soo keenaa waan lagu jiraa permit kana waxa waaye kana soo galo ku dhahay kan kale waa la soo deny jiray laakiin IP address kan yani halkan IP address halkan yaalo soo darteed yani deny waxa uu ku siinaa markaas ay laakiin IP address lagu isku day inuu lagu soo galo hadda ma sharaxin laakiin deny buu noo sheegay ala kulli hal too much deny oo dhahay hadda saan dhahno mar saddexaad ku day mar saddexaad ku day mar afraad ku day mar shanaad ku day mar lixaad ku day halkan imaaw sande 6 mar waa ka soo kusana wuxuu qarinaa malaasna in 6 mar la isku day oo ku sharaxaya okay dhinacaas waxaa noogu dhan telnet si loo blogareynayo routerka kan kalena ku shaqeynayna fiira dartid router 2ga oo isku dhagan yihiin waa kuwan isku dhagan yihiin kaas fiiri telnet 14.14.14.1 oo diiday hadaad 6 oo taalay hada 2 ku dar aragdo 8 mar waa diiday soo bandhigay tuugo loo geeyay markaan oo isku dayay 8 mar isku dayay dadkan passwordkooda bedelinayaan hadii reer magaalijiin okay telnetka waa kaasa waxaa loo furay hal qeyb saan hore u sheegay hal qeyb oo soo furnay marka waxaan rabnaa misaal inaan sameyno shirkada meeshan ka shaqeynayso hadda kan 10 saadan ku dhameeyay kullay telnetka ka dhinay kareynay waxaa rabtaa shirkadda waxay rabtaa inay geliso timetable yani waxaa shaqeysaa Monday to Friday morning to afternoon isniin ilaa jimcaha subaxi ilaa galabkii aad shaqeysaa routerkooda haddii yani waqtiga shaqada kaliya loogu talagalay in remote ahaan loo soo galo marka shaqada ay dhamaato remote ahaan in lagu galo ma loogu talagalin sababtoo tuuga laga ilaalina waxyaabo kale laga sameeyo ama dadada la xado laga ilaalina Soomaaliya marka access-kan soo taas ku support gareeyaa way config t hadanahay waxaa soo bilowdaa time range isla router 4 kan ku sameynaya time range okay
time range hadaan dhaho waxaan u sameynayaa soo magaca ku weydiinaya kan magaca u sameyso ku dhahayaa Soomaali leh access history ma soo gaarin time range la sameeyay hadda okay marka halkan joogno marka waxaan leenahay periodic waxa waaye maalmaha aragti inaad dooratid lagu leeyahay waa jimcaha ilaa iyo weekdays weekend yani waa shanta beri iyo laba maalin Saturday iyo Sunday waa halkan hadaa fiirisid waa sida normalka ah weekend af Ingiriis waxa lagu dhahaa Saturday iyo Sunday weekdays waxa lagu dhahaa Monday to Friday isniinta ilaa jimcaha okay anaga marka waxaan dooranaynaa maadaama ay tan tahay suuq isniin iska dooran Monday hadaartu waa ka badin kartaa anta airta dooran kartaa 5 bir hadaartu dooranaa hadaartu 3 bir dooranaa qof inta uu shaqeeyo xiran tahay marka hal maalin soo dooranayo waxa ka qaataa waqti raadso hadaan saan dhaho wili wuxuu siinaa maalmaha kale Monday laga soo saaray hadda isniinta laga saaray waxa lagu siiyay talaado khamiis talaado arbaco maalmihi kala dan lagu siiyay laakiin aniga hadda markaan maalin kale ma rabo inaad doorto waxaan rabaa inaad ka doorto waqti subaxii 9 laba saac 3 saac subaxii 00 space marka waxaa leedahay 2 ku dar 2 yani waxa waaye subaxii waxa waaye 9 to waxaa rabtaa 4 9 to 3 waqti artaa dooran kartaa markaas ayadana marka waxaan leenahay 2 13 3 3 saac subaxii ilaa 9 saac 00 intaas marka aad doorto hadaan saan dhahayd waa eber waa inta la leedahay marka saan dhahno marka exit waxaan rabnaa timekaas in lagu apply gareeyo access list waan soo sameynay access list okay 101 deny extend lagu apply gareena timekaas aytii deny TCP waqtiga soo sameeyay already waxa ka hadlaya access 10 ku jiro deny IP address ka sala soo diiday backend soo diray yaa la leeyahay wixii data aan sameeyno way access list deny message soo dhaca ka hadla access list TCP deny anahay ani AQ 23 waa telnetki mid ahaan lagu soo gal lahaa gaal leena der okay markaan saanahay marka access system andarateen waxaa jira miyaa deny TCP aga maqan marayna deny TCP waa sameeyay small space ku jirto deny TCP hadda ayuu waxa ku jirto ani okay taasanda waxa ku jirto ani kale waxaan rabnaa marka port inaan raadino EQ sande markaan port 23 doornayna telnet meesha ka qornay 23 aan ku qornay sande markaas aytii waxaan rabnaa inaan doorano time range sababtoo waxaan rabnaa timeka soo gelinaa soo doorano time range magacaan soo sameeyna u baahnaa magacaan soo sameeyna muxuu ahaa waay yaa xasuusinaayay time range Somali halkan Somali aan soo sameynay halkan keen Somali internet okay saan waxaan soo sameynay access deny TCP ani wax kasto oo remote ahaan u imaanayo isniinta ilaa iyo isniinta waqtiga subaxii 9 to waqtiga saytii waay deny hadda ay ku bilaabatay waa socotaa telnet okay access to deny soo sameynay waxaan rabnaa marka inaan sameyno permit waqtiga kale oo yani waqtigaas yani gaabka si marka ku jiro access yaku permit IP ani
markaasaan aadid marka end dheh waxaan leenahay show time rank oo kusiina waa kana waqtiga siis oo kusiina wuxuu ku leeyahay time range entry Somali magaca Soomaaliya lahaa time range in active in sababtoo hadda active maan Monday lama joogo markii Monday la gaaro isniinta markii la gaaro wuxuu soo noqonaa active period Monday yani periodic waxa waaye Monday waaye yani isniinta waqtigaas ay tahay 5 bir hadda ka qorta ay ku xiran tahay taasna waa la sameyn karaa iyadana taasna waa sida waqtiga loo geliyo marka saas loo isticmaalaa time kana hadda rabtid extended wax badan la gelin karaa markii loo fiiriyo show login hadda ma soo boorto kaliya data show login show access list waxaa soo baxay hadda access data halkan ay taalo antan waxa ay taalo deny oo Somali inactive wili waqtiga lama gaarin Mondayda saas loo sameyn karaa yani qofka waqtiga loogu talagalay kaliya oo fasaxi kartaa waqtiga kalena waa ka xiran kartaa adeeg kugu xiran tahay taas telnadii aan proweynay keenta ma shaqeynaa waa shaagi aan fiirino marka waa shaaga iga harsan waya shaag waxaa la qaado letter iyo jarjiga shaqeynayo telnetka kan isku day marka telnetka kan router 3 badanaa telnetka shaqeynayay okay waya shaagi aaway halka caadi soo saaraa telnet banaanku yaala casharka intaan ku dhamaysanay warshaaga waxaan ma qarinayo laakiin kuwan kale waa ka xiran yihiin kulley kan kaliya u furan cashar dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.